Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Ninkii Xasan Sheekh baa waxaa ka soo hadhay war Somaliland yaa geeyey Israa'iil war sidaba Israa'iil ku tagay war yaa geeyey Somaliland waxaa Israa'iil ku riixay Xasan Sheekh oo adiga ku dhe adiga sida aad doonaysay inaad meel kasta uga soo xidhid Somaliland inaad doonaysay inaad cirkii ku cashuurtid oo dhulkii ku cashuurtid oo aad ku soo hubayso dhulbaantii aanu isdhalay adiga siday kaaga ordayeen bay Israa'iil afka uga galeen waxaan doonayaa kale aan kuu sheego farsadihii aad haysatay oo dhan waxaad moodaysaa inay Jabuuti kula tahay saaxiib Jabuuti waxay iyada danteeda ku jirtaa Soomaaliya oo burbursan Somaliland oo burbursan danteeda kuma jirto Turkiga aad daba joogtaan ma waxaad moodaysaa inuu dantiina ku jiro Turkiga Soomaaliya oo aad quwad weyn leh oo wanaagsan dan uguma jirto Turkiga moogta laakiin annaga Israa'iil waxay danteeda ku jirtaa Somaliland oo wanaagsan oo quwad leh oo munaafic la soo baxday waxa adduunka dhulkeeda ku laaban ku duugan baan uga jeedaa oo dhisan oo awood leh ayaa Israa'iil dan ugu jirtaa laakiin Jabuuti dan uguma jirto Soomaaliya oo wanaagsan oo awood leh oo fiican oo wax qabsatay Xasan Sheekh nimankan uu la saaxiibay Jabuuti iyo masaaridan aad mooda saaxiibada inay yihiin iyo Turkigu saaxiibada maaha dantooda iyaga kuma jirto idinkoo fiican oo quwad leh fakar adigu dantaada waxay ku jirtaa Soomaaliya oo wanaagsan Xasan Sheekhow wadankaaga hawaalin Somaliland way socotay waanay soconaysaa waxna kama qaban kartid istabaqo oo ummadda aad madaxweynaha u tahay si fiican ugu tali wassalaamu calaykum